haweenayda geesiga ah ee beddeshay qaranka Rosa Parks. Bilowgii xiisaha, ka fikir in lagaa dalbayo inaad fadhigaaga ka baxdo keliya sababo la xiriira midabka maqaarkaaga. Hal haweenay ayaa tiri may, taasoo taariikhda gebi ahaanba beddeshay. Qisada oo buux. Sanadkii 1955 magaalada Montgomery ee Alabama waxay ahayd magaalo u qaybsan kala sooc. Dadka madow waxaa laga rabay inay fadhigooda ka siiyaan basaska dadka caddaanka ah, xitaa haddii ay hore u bixiyeen kirada safarku. Nolol maalmeedkii dadka madow waxay ahayd halgan joogto ah oo ay ka buuxaan ceeb, cadaalad darro iyo cabsi. Haweenaydii Rosa Parks ayaa sannado ku bixisay la dagaalanka cadaalad darrooyinka si aamusnaan ah. Waxay daashay in loo arko sida qof ka hooseeya bini'aadam. Bishii Diseembar hal aad waxay fuushay bas kadib maalin dheer oo shaqo ah. Markii lagula taliyey inay fadhigeeda ka siiso nin caddaan ah, way diiday. Sinimadeeda aamusan waxay dhalisay dabkacay. Bulshada madow waxay abaabuleen boyaakada basaska Montgomery, waxayna lugaynayeen maalin kasta in ka badan hal sano, iyagoo wajahaya hanjabaado, xiritaan iyo rabshado. Iyadoo ay jiraan caqabado badan, waxay ahaayeen kuwo midaysan, muujinaya awoodda iska caabinta aan rabshada lahayn. Ficilka Rosa Parks ma ahayn keliya in ay bas fadhido, wuxuu noqday astaan sharaf, geesinimo iyo halgan loogu jiro sinaan. Boyaakada ayaa keentay go'aan maxkamadda sare ah oo sheegay in kala sooca basaska uu sharci darro yahay, wuxuuna noqday sababta bilowga dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga, isagoo dhiirigeliyey malaayiin inay istaagaan oo ka hortagaan cadaalad darro.